subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmihiisa ka kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo xalay kulan la qaatay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble oo la sheegay inay ku adkaan doonto muddada uu haysto 8 qodob ee uu ballan qaaday al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Hosingo ee gobolka Jubbada Hoose midowga Yurub iyo WHO walaac xoogan ka muujiyay fatahaadda webiga Shabeelle ka sameeyay deegaano ka tirsan Hirshabeelle madaxweynaha galmudug oo kulan looga hadlay amniga la qaatay hay'adaha maamulkaasi iyo xubno ka tirsan beesha caalamka kooxda Taliban oo ku dhawaad 30 askari ku dishay gudaha waddanka Afghanistan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 24 bisha 9aad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxa akhrinaya wariyaheena Cabdulcasiis Ibrahim aad iyo aad buu maasii yahay wariyahayga Cali Suxayfa isla markaana ah warsaaraheena saaka aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa xalay kulamo la qaatay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay magaalada Muqdisho waxa uu kulamo kula yeeshay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa la kulmay guddoonka golaha shacabka sida guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa koobaad Cabdiweli Ibraahim Muudey kulanka waxaa guddoonka looga mahadceliyay doorkii ay guddoonka golaha shacabka ka qaateen ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay codka kalsoonida baarlamaanka golaha shacabka ka helay iyo sida ay u wada shaqayn karaan xukuumadda uu soo magacaabi doono ee xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigoodu sii ilaanayo waxaana xalay kulanka miradhal aan la qaatay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee golaha shacabka ayuu yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble guddoonka golaha shacabka guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ayaa ra'iisul wasaare Rooble waxa ay ugu mahadceliyeen hambalyana markaasi u jeediyeen magacaabista loo soo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyagoona markaa ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii waxa ugu qaban lahaa arrimaha ammaanka doorashooyinka iyo dhaqaalaha guddoonka golaha shacabka ayaa hambalyo u jeediyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha codka kalsoonida shalay ka helay baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegay in ay ku adkaan doonto muddada uu haysto 8 qodob ee barnaamijkiisa xukuumadda uu soo magacaabi doono ee uu ballan qaaday warbixintaasi waxaa inoo haya wariyahayga Xuseen Cabdulle Maxamed ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ka horsheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo oo ka shaqeysa 8 qodob oo ah qorshe howleedkiisa qodobada uu sheegay inuu wax ka qaban doono ra'iisul wasaare Rooble waxay kala yihiin ammaanka cadaaladda doorashooyinka dhamaystirka dastuurka ku meel gaarka ah siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha musuqmaasuqa iyo dib u heshiisiinta dhammaan qodobadan waxay qorshe howleed u hayeen madaxweynayaashii dalka soo maray 20 sano ee la soo dhaafay sidoo kale 12 ra'iisul wasaare ee dalka soo maray ayay qorshe howleed u hayeen 20 sano ee la soo dhaafay qodobadan mudanayaal marwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah 1 arrimaha amniga 2 arrimaha doorashooyinka 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga bulshada 4 cadaaladda iyo garsoorka 5 dawlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa 6 dib u eegista dastuurka 7 dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro 8 iskaashiga caalamiga ah waxaa iga go'an inaan soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka tarjumaysa baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeena Soomaaliya marxaladan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hanaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay hadduu alla idmo haddii 8 qodob 5 madaxweyne 20 sano ku qaban waayeen sidoo kana 12 ra'iisul wasaare ku qaban waayeen ma ku qaban karaa ra'iisul wasaaraha cusub muddada 4 bil ah uu haysto
Professor Nuur Cali Diiriye oo ah falaqeeya arrimaha siyaasadda ayaan weydiiyey suurtagalnimada in Ra'iisul Wasaare Roble uu wax ka qabto qodobadaas iyo kuwa ugu horeeya oo ay tahay inuu soo hormariyo si uga faa'iideysto muddada kooban ee u harsan. dabcan 8 qodob waxaad u malaysaa in badan in ay isaga mid yihiin farqiga u dhaxeeyana dabcan marka dib u raacdo aad u yar yahay marka waxaan isleeyahay waa iska formality guud oo maray oo dul maray intooda badan laakiin inta ugu muhiimsan waxaan isleeyahay waa amniga iyo dardargelinta doorashooyinka ayaa inta badan waqtiga dhiman ku habboon waqtiga dhiman aad u yar yahay runtii November waxaa loo dareeri doonaa sida isfahanka haddii la ansixiyo doorasho loo dareeri doonaa marka waqtiga inta la eeg waxaan isleeyahay qodobada ugu muhiimsan waa inta electionka saacidaysa in hore loo galo. dhinaca kale waa maxay farqiga u dhaxeeya ansixinta baarlamaanka ee Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dhawaan la magacaabay Maxamed Xuseen Roble? saacadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ka bilowday doodo ku saabsan in si aan hore u dhicin codka kalsoonida ah loo siiyay Ra'iisul Wasaare Roble. Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu codeeyay 215 xildhibaan oo fadhiga ku sugnaa halka Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ay codka kalsoonida ah siiyeen 230 qof oo kulankaasi goobjoog ahaa. ma jirin qof diiday ama ka aamusay labadooduba. Professor Nuur Cali Diiriye ayaan weydiiyey farqiga u dhaxeeya labadaas kalsooni iyo waxa keenay dooda baraha bulshada. waxaan isleeyahay marka sida saxda loo qiimeeyo farqi badan uma dhaxayn codadkii fadhiyay oo dhan in lagu ansixiyay maanta iyo kuwii Ra'iisul Wasaare Khayre codadkii fadhiyay oo dhan ay wada ansixiyeen farqi badan uma dhaxayn taas laakiin waxaan isleeyahay dareenka bulshada waxa aad maaragtay u buunbuuninayo waqtiga uu ku soo aaday oo waqti aad baahi badan loo qabo xafiiska fulinta dalku inuu shaqo galo oo doorashadii iyo qabanqaabadeedii uu ka howlgalo. Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya codka kalsoonida ah ka helay baarlamaanka waxa uu haystaa muddo ka yar 140 cisho waxaana looga fadhiyaa dhismaha golo wasiire oo dalka ka samata bixiya xaaladda adag ee ku jiro. Professor Cali Saciid Maxamuud Kulane ayaa ku taliyay in golaha wasiirada intooda ugu badan dib loo soo celiyo si looga faa'iideysto muddada kooban ee Ra'iisul Wasaaraha iyo dawladdiisa ay haystaan. Ra'iisul Wasaaraha hadda la magacaabay iyo madaxweynahana way maskaxdooda shaqayso because waqti ma harin haddii aanay doonaynin inay mar kale waqti ku sii darsadaan oo ay waqti dheeraysi inay sameeyaan ay sahlin oo marmarsi laga dhigto dawladda lama baasreeyay wasiirada magacaabayna iyo agaasimayaal noo dhimay ku xigeenna iyo baarlamaanka aanan weli horgeynay taas marmarsi laga dhiganayo waa gooni waqtigii kale ku qaadis aan loogu diyaar garoobo waxaan isleeyahay waqti lama hayo wax kale oo waxa lagu soo magacaabo baarlamaan waxa la horgeeyo oo la iska daba wareego taas waxa noqonaysa siyaasad qaldan iyo shaki dadka Soomaaliyeed ee qabeen gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ee adduunka. Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubbada Hoose. dagaal u dhaxeeyay ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland oo dhinac ah iyo dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Hoosingo. weerarkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubbada Hoose. dagaal xoogan oo saacado socday ayaana ka dhacay nawaaxiga saldhigga ciidamada waxaana jira khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay walow aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu leeyahay. sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaabkii weeraray ay khasaare gaarsiiyeen isla markaana ay dib isaga caabiyeen. sidoo kale sargaalkan ayaa hadalkiisa ku daray inay ku daba jiraan xubnihii al-shabaabka ahaa ee weeraray saldhigga ciidamada ee Hoosingo ay ku leeyihiin. wararkii ugu dambeeyay ee saaka laga helay deegaankaas ayaa sheegaya in xaaladdu ay tahay mid degan isla markaana goobtii lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland. al-shabaab ayaa dhowr jeer sidan oo kale weeraray saldhigga ciidamada dawladda Kenya iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo iyo waliba sidoo kale goobo kale oo fariisin ay ku leeyihiin oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose. ururka midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa walaac xooggan waxay ka muujiyeen fatahaadda webiga Shabeelle oo ka sameeyay deegaano hoostaga dawlad goboleedka Hirshabeelle. midowga Yurub iyo hay'adda jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO ayaa walaac hor leh waxa ay ka muujinayaan in xilligan dadka ku nool Beledweyne, Jalalaqsi, Jowhar iyo Mahaday ay wajahaan xaalad nololeed oo aad u adag iyadoo deegaanadaasi saameyn ay ku yeesheen fatahaado webiga Shabeelle uu sameeyay iyo kiisas la xiriira coronavirus oo laga soo wariyay horaan.
safiirka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Barlenga ayaa waxa uu yiri midowda Yurub oo kaashanaysa WHO waxa ay isku dayeen inay caawiyaan dadkan laakiin caawinaadeena ayaa mid aad u yar taasina waxa ay keenaysaa in dhibaatada aynu soo afjari weyno waxaanse dareemaynaa in dadkaasi ay u baahan yihiin in la badbaadiyo noloshooda oo xaalad adag oo bini'aadanimo ay ku sugan yihiin sidoo kale xafiiska safiirka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Mr Barlenga ayaa waxa warqad ka soo baxday lagu cadeeyay in marba marka ka dambaysa xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ay ka sii darayso loona baahan yahay dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada inay iska kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadkan u badan haweenka iyo caruurta ee dhibaatooyinka nololeed wajahaya webiga Shabeelle ayaa fatahaado ka sameeyay deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle dadka ayaa weli la daaladhacaya dhibaatooyinka ka soo gaaray fatahaadahaasi qaarkood ayaa isaga barakacay guryahooda halka kuwa kalena ay u muuqdaan in go'doon ay ku jiraan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulamo looga hadlayay arrimaha ammaanka waxa uu la qaatay hay'adaha maamulkaasi iyo xubno ka tirsan beesha caalamka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa waxa uu kulan la qaatay hay'adaha ammaanka Galmudug kulankaas ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa qaar ka mid ah hay'adaha beesha caalamka madaxweyne Qorqor ayaa kulankaas waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga nabadeynta dib u heshiisiinta kaabayaasha dhaqaale iyo la dagaalanka al-shabaab Qorqor ayaana hay'adaha kulankaas qaybta ka ahaa ee taageera Soomaaliya ka dalbaday sidii looga garab siin lahaa dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab kulankaas ayaana madaxweynaha Galmudug waxa sidoo kale kala qayb galay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada shirkan ayaana waxa uu ku soo aadayaa kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay dhawaan ku dagaalameen qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyadoona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolkaasi ay sheegeen in al-shabaab looga dilay dagaalkaasi dhowr xubnood